بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن أخيارت شرفت لمال كستود عالم كإنك داونيسان كسو دوادا جنال كعبد الساق شو وهاد إيه جرالبا aad kala socotaan barnaamijyada isugu jira arrimaha bulshada wacyigelinta iyo falanqaynta siyaasadda iyo qaybo kamid ah oo markaasi isla barnaamijyadaas la halmaala waa tahay daawadayaal maanta waxaan jeclahay inaan falanqayn yar ka dhiibo arrimaha siyaasadda iyo heerka uu marayo dowladda federaalka Soomaaliya ay maraysan iraahdo iyo sidoo kale heshiisyada u dhaxeeya oo maanta aanu rajeynayno inay ku kulmaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya kulankooduna oo haduu idmo noqon doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug. Haddaba waxaan jecelahay inaan ka hadlo dhowr qodob oo isugu jira qodobo aan isleeyahay markaas waa taagan yihiin. Waxa ugu horeeya marka ugu horeysa arrimaha doorashooyinka waa qodob dastuurka qayb qoraalka ah. Sidoo kale gudoomiyaha guddiga xaliimiyay qodbadii ay ka horjeedisay baarlamaanka iyo muddadii markaasi loogu daray dowladda Soomaaliya waa hadii la isku raaco awooda maxkamadda sare oo haatan aan ahayn mid jirta laakiin aan ahayn maxkamad markaasi awood u leh mid kala saari karta madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ah ayadu awood ka madax banaan labada dhinacba. Sidoo kale maamul goboleedyada rajada ay kala yihiin iyo damaaciga ku jira oo dhanka siyaasadda ah inay qayb kala noqdaan ama lagala tashto arrimaha masiiriga isla markaasna ay ku matalayaan qaab state ahaan ah ama maamul goboleed ahaan ah iyo deegaanada ay ka soo jeedaan iyo siyaasiyiintoodaba ayagoo isla markaasi dhaliilay heerka ay marayso dowladda Soomaaliya waa sida maamul goboleedyada ama mucaaradku ay hadalka u dhigeen inay dowladdu ayadu go'aamada iska qaadato oo qaab dictatorship ay markaasi wax ku wado. sidoo kalena ay dhaliilsan yihiin inaan laga qayb galin ama markaas aan laga la tashan waa madaxda maamul goboleedyada. runtii shantaas qodob ayaan jecelahay inaan haduu idmo aan caawa halkan maanta aan iraahdo aan halkan ku falanqeeyo waxaan ka marnaan doonin qodob aad iyo aad muhiim u ah rabitaanka iyo rajada ay shacbiga Soomaaliyeed ay ka leeyihiin heshiiskan maanta ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug rajada ay ka leeyihiin oo ah in ay noqoto mid markaasi miradhal u ah ummadda Soomaaliyeed isla markaasna runtii ay noqoto mid la isku raaco waa sida ay jecel yihiin ama ay ku hanwen yihiin shacbi weynaha Soomaaliyeed haday yihiin kuwa gudaha ku nool iyo haday yihiinba kuwa dibadda ku jira. waa tahay intaas waxay ahaayeen qodobadii hadalka oo jeclaa inaan idin dul maro hadii aan marka mid ugu soo dago waxaan jeclahay markaan inaan ku soo boodo qodobka ka hadlaya doorashooyinka arrimaha doorashooyinka markaan ka hadlo hadoo idmo waxaad ogtihiin daawadayaal in doorashadii ama markaasi gudoomiyaha guddiga madaxa doorashooyinka dalka Soomaaliya xaliimiyay ay baarlamaanka horteeda ka tiri inaan la taagnayn xilli munaasib ku ah waqti xaadirkan la joogo doorasho qof iyo cod ah isla markaas loo baahan yahay in si loo helo waqti markaasi lagu diyaarin karo hanaanka doorashooyinka sidoo kalena lagu soo dhisi karo wixii markaasi ama qabyo ahaa ama maqnaa sidoo kalena arintaasi aysan ka marnayn in ay madaxda qaybo kamid ah maamul goboleedyada iyo sidoo kale siyaasiyiinta kuwa kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay walaac aad u fara badan ay ka jeediyeen ayagoo u arkay arintaasi inaysan xilligan aysan ahayn mid looga baahnaa ama laga sugayay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka inuu ku dhawaaqo halka qaybo kamid ah dadka markaasi siyaasadda Soomaaliya ugu sareeyahay ay ku dhaliileen xaliimiyay inay arintaasi tahay afkeedii inay arintaasi aysan ahayn afkii ayadu ay lahayd ee ay ku hadlayso af kale. waa tahay waxaan jeclahay sidoo kale inaan shacbigu arintaas waxa uu ka qabo iyo fikradahooda markaan dhex galnay inaan laftirkeeda aan idin la wadaago midaas oo ah doorashadani waxay ahayd runtii mid la sugayay xilligeeda inay ku dhacdo dhici weyday oo markaasi iska daba jiitan iyo isqabqabsi siyaasadeed oo markaasi runtii aan la garan karin halka uu salka ku hayo dowladda federaalka oo u aragta waqti qurux badan iyo markaasi howl aad u wanaagsan inay ka filisay intay xilka ay heeday waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida ay ayagu isku wado dowladda isku wado iyo sidoo kale mucaaradka dalka Soomaaliya ama madaxda ama siyaasiyiinta markaasi ugu cadcad dalka Soomaaliya ama ha noqdaan kuwa hore xilka u haya ama ha noqdaan kuwa hadda kamid ah kuwa xilka hayo markaasi ama wasiira ama xildhibaan ah
ayaa waxay u arkaan inaysan munaasib ku ahayn. haddii marka arrintan doorashada aysan suurtagal aysan noqon inay dhacdo xilligeedii ay dhacdo, maxay noqon kartaa xaajadu? waa su-aal meesha taagan, isla markaasna bulshaweynta Soomaaliyeed ee ayagu isweydiinayaan xilligan munaasib ma tahay xilli jiijiitan ay gasho? dastuurku ma qoraya arrintaas ayada ah? heshiiskii ama muxuu ahaayey qaabkii dowladdan hadda taagan ay dowladdii hore ugala wareegtay xilka, ama tii ka horreysatan ee midii kasii horreysay ugala wareegtay wadiiqo ama wado lamida miyay dowladdaani ku socotaa mase mid ka gedisan ayay ku socotaa? arrinta markii loo qaybiyo saddex dhig oo runtii ah qayb ka mida dowladda federaal Soomaaliya siday u hadlayso, ama guddiga doorashooyinka qaabka oo u dhigay arrinta muxuu ahaayey xilliga doorashada ay kusoo beegan tahay iyo inaysan munaasib ku ahayn. dowladdii oo iyadu aad moodo arrintaasi inay ku qanacsan tahay, haddana marmarka qaar dadka qaar ay u arkaan mid ay dowladdu gadaal ka riixayso inay tahay arrintaasi, iyo shacbigii oo runtii walwal aad u ballaaran ka qaba haddii aysan dhicin xilliga loogu talagalay doorashooyinka in ay imaan karto iska hor imaad siyaasadeed dhinaca mucaaradka iyo muxaafidka, iyo sidoo kale markaasi dadka markaasi ama dowladaha ayagoo involved ku ah ku lug leh arrimaha Soomaaliya lana kala shaqeeya ama la kala jira, ama markaasi labada dhagood ugu kala warama, ama mucaaradka ha noqoto ama muxaafidka ha noqoto. qodobkaas markaan kasoo gudubno dastuurka Soomaaliya ayaan jeclahay markaana inaan dul istaagno. inta badan dastuurka Soomaaliya waa mid runtii shacbi weynaha Soomaaliyeed iyo weliba hadba dowladba markay dowladda kale rabto inay kursiga kala wareegto ballanqaadida ay sameynaysay ahayd inay dastuurka dhammaystiri doonto. dastuurkiioo weli ah mid qoys iyo qabiil iyo qoom iyo cod intaba u baahan ah, laakiin qabyo. markaan idin leeyahay wuxuu u baahan yahay qoys iyo qabiil iyo qaran iyo intaba, waa minis dastuurka u baahan isagu in la haqabtiro, in la dhammaystiro, in wadiiqadii ama wadadii ama sharcigu siduu ahaa in la mariyo. dastuurkii u baahan taas, laakiin aan helintaas oo nasiib u yeelan. iyo dadkii waa hashimaandeeq oo lamaashe dadkii markaasi ayagu maalan lahaa dastuurka oo ku dhaqmi lahaa oo dhaqan geli lahaa oo dhammaystiri lahaa baahidii markaasi dastuuriga ahayd oo markaasi ahayd hirgelinta arrimaha siyaasadeed ama shuruucda dalka u yaala baarlamaanka ha noqoto, madaxda sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada, xukuumadda shaqooyinka kala leedahay dastuurkii dhexdhexaadin lahaa, isla markaasna dalku ku dhisnaa. haddii uu maqan yahay saameyn, haddii uu dhammaystiran yahay aan idhaahdo saameyn intee la eg ayuu horu socodka dalka Soomaaliya ku keeni karaa? waa su-aal inta badan ay isweydiiyaan dadka siyaasadda oo darasa ama shacbiga Soomaaliyeed, maadaama dowlad walba timaadaba ay hadalladeeda ay kamid tahay dastuurka qabiil qoraalka ah, ama dastuurka ayaa sidan ah, ama dastuurka ayaan dhammaystirayna, ama dastuurka aan dhammaystirnayn, isla markaasna ay cuskanayaan qeybo kamid a dastuurka. waa tahay waxaa meesha ka maqan awoodii dastuuriga ahayd oo halkaasi ku jirtay. waxaan jeclahay markaan inaan usoo gudbo haddana waa qodobka saddexaad. haddii qodobkani wuxuu la xiriiraa arrinta ku saabsan haddii ay dhacdo in dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada maantadan la joogo u fadhiya wadaxaajood ama heshiis ay isla gaaraan dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyadu magaalada Dhuusamareeb xarunta gobolka xarunta maamul goboleedka Galmudug, haddii ay dhacdo in ay ku heshiin waayaan, haddaba hankan laga sugayo dowladda ama maamul goboleedyadu muxuu noqon karaa? shacbigu waxay rajeynayaan in dowladda Soomaaliya ama dalka Soomaaliya ama dadka Soomaaliya ay noqdaan kuwa hore u socdaan, kuwa qaada wadadii saxda ahayd ee horumarka, kuwa noqda kuwa markaasi ku diirsada nabad iyo horumar iyo muxuu ahaye dhaqaalo iyo waxbarasho iyo maxaan ku raadaaye dal markaasi qarannimadiisii ama muxuu ahaye dowladnimadiisii ay noqoto mid dhidibadu si dhaba ay u aasan yihiin. haddii marka arrintaasi aysan suurtagal noqon oo madaxda maamul goboleedyada iyo isla markaas dowladda federaalka aysan heshinin, dhibaato intee la eg ama rajo xumo intee la eg ayay shacbiga Soomaaliyeed gelin kartaa? dowladdase dib u dhac intee la eg ayay ku keeni kartaa, maadaama geedi socodkii nabadeynta ama dal dhiska ama horumarinta dalka oo markaasi ay yihiin runtii madaxda ugu sarreysay kuwii u dhaartay inay taabageliyaan horumarka dalka, taabageliyaan dastuurka iyo nidaamkiisa, horumariyaan shuruucda iyo axdi qarameedka markaasi dalku uu ku dhisan yahay,
dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedna ay ka dhigaan mar labaad mid isagu ku dhisan dawlad sax ah, awoodeeda ciidan, awoodeeda dhaqaalo, awoodeeda horumarineed iyo waliba istaraatiijiyadeeduba ay dhisan tahay. waa su'aal shacbiga ayaa wuxuu la daalaa muddooyinkii la soo dhaafay ee 30 sano ahaa arrimo qabyo ah, dawlad qabyo ah, qaran aan markaasi dhamaystirnayn iyo waliba rajo dawladba markay timaado midda ku xigtahay ay muujiso in ay markaasi wax ka bedeli doonto hab samayso codka dalka Soomaaliya oo markaasi taagan yahay. laakiin dhibaatada taagan ayaa dabcan ah oo la isla arkay. dalka Soomaaliya ma dhamaystirna dastuurkiisa, mid walbaana inay dhamaystirto ay isku daydaa. dawlad walba waxay ballan qaadaa inay gaarsiiso dalka Soomaaliya iyo dadkaba in la helo doorasho sax ah isla markaasna qof iyo cod ah. haddana ma dhacdo. waa sidee marka xaalku? maxaa qaldan? maxaa hagaagsan? maxaa halkee heerkeen maraynaa? xageenu tiigsanaynaa? waa arrinta ku saabsan shirka iyo haddii la helo horumar arrinta ku saabsan shirka oo haatan hadday dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ay heshiiyaan horumar intee leeg ayay gaarsiin karaan. nacam waa gaarsiin karaan hadday israacaan, garbaha isqabsadaan, ku heshiiyaan. waa halka madaxda maamul goboleedyadu ay runtii ayagu aad iyo aad uga cabanayaan in arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya uu taagan yahay, isla markaasna go'aamada waa sida hadalka ay u dhigeen madaxda maamul goboleedyadu, isla markaasna ay go'aamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadanayso arrimaha masiiriga ee go'aamada dalka ah aan ayada laga markaasi lagu tixgelin inay qayb ka noqdaan ama go'aamada noocaas inaysan wax ka qaadan. waa siday u dhigeen hadalkooda madaxda maamul goboleedyadu. dawladda Soomaaliya ay noqoto mid ayada go'aanka si toos ah u qaadata, cidna aan kala tashan, dhagaha ka furaysata ama baahida markaasi ay u qabaan madaxda maamul goboleedyadu inay qayb kaga noqdaan arrimaha awaamiiriga ah ee dalka u yaala, ama sidoo kale shacbi weynuhu arrimaha ay markaasi tabanayaan in wax laga bedelo, ama sidoo kale mucaaradka oo asaga laftirkiisu markaasi indheeya hab samayso codka dawladda, isla markaasna waa sida ay sheegaan wixii ay u arkaan inaysan munaasib ku ahayn dalka iyo dadka ku dhaliila, sidoo kalena dawladda ay markaasi dhagaha markaasi ka xirato. waa sida ay qabaan mucaaradka qodhoodu. waa tahay markaana waxaan jeclahay runtii qodob aan isleeyahay muhiim weeye, isla markaasna laga maarmi mayo ayaa jira. runtii qodobkaas oo ah maxkamadda dastuuriga ah ee sare ee ah maxkamadda ugu awooda badan dalka, isla markaasna ah maxkamad kala qaban karta madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda markaasi ayagu hogaamisa maamul goboleedyada. haddii aan la helin maxkamad awoodeedu ay tahay mid dhammaystiran, dastuurkeedu u dhammaystiran yahay, awoodeedu aysan ahayn mid ku xiran ama madaxda ama maamul goboleedyada, isla markaasna ay tahay awood ay u madax bannaan tahay inay go'aamada madaxda ugu sareysa dawladda wax ka bedeli karto iyo sidoo kale midda maamul goboleedyada. maxkamadaasi runtii waxay muhiim u tahay qarannimada ummadda Soomaaliyeed. su'aalaha inta badan dadka Soomaaliyeed ay isweydiiyaan ama siyaasiyiinta qaar ay isweydiiyaan ama aanon markaasi jeclayn inaan magacooda xuso, laakiin aan iraahdo qaybo kamida xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay soo magac qaadeen, horena usoo magac qaadeen, oo dawladdan hadda taagan ay hore usoo magac qaadeen, haatanna ay soo magac qaadeen oo ay yiraahdeen maxkamad sare oo markaasi awoodeeda midda ugu sareysa ay tahay maxkamad sare ah. ka maarmi mayno, sababtoo ah waxaa jirtay hore u jirtay markii madaxda dawladdii hore iyo kuwii kasii horreeyay markay isqabsadaan madaxda ugu sareysa iyo maamul goboleedyadu in lagu dhexdhexaadin jiray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia, ayadoo markaasi ay madaxda Ethiopia arrintaasi ay dhexdhexaadinayso. waa tahay haddii ay suurtagal tahay ama markaasi ay jirto maxkamad awoodeeda sare leh, dalkeenana ay ka dhisan tahay, nidaamka iyo shuruucdeedana ay u dhammaystiran yihiin, dabcan waan ka maarmi lahayn arrintaas ayada baahida loo qabo. waan ka maarmi lahayn faragelinta siyaasadeed ee markaasi dibadda annaga inagu ah. wax badan oon ka maarmi lahayn ayaa jirto. marka halka aan uga gol leeyahay inaad daawada ila garatid ayaa wax ay tahay, haddii aan la helin maxkamad markay isqabsadaan madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha inta kiiskooda qaada si markaas awood dastuuri ah ku qaada
kala xukmisa haddii aan la helin maxkamad dowladda federaalka Soomaaliya oo iswadata iyo midda maamul goboleedyada hadday isqabsadaan inta u yeerta dabcan maxkamadaasi sharciyan markii kiis loo gudbiyo ama mucaaradku ha u gudbiyo ama madaxda maamul goboleedyadu ha u gudbiyaan ama dowladda federaalka laftirkeedaba ha u gudbiso hadday doonto waa maxkamad awood u lahaan lahayd hadday jirto dastuuri ah qaransan awood u lahaan lahayd inay maamul goboleedku go'aamada ay qaataan ay kan kasal garayso waa hadday la imaadaan markaasi sabab ay xaq ugu yeeshaan in looga cancel gareeyo sidoo kalena haddii ay axdigii iyo nidaamkii iyo shuruucdii dalka u yaalay ay ku xadgudbaan madaxda ugu sareysa tan federaalka sida madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra'iisul wasaaruhuba ay awood u yeelan lahayd maxkamaddu ayadana inay go'aamadooda wax ka bedesho maxkamadaasi hadday dalka ka jiri lahayd dabcan hadda waa la yiraahdaa maxkamadda sare waa la yiraahdaa laakiin awoodeedu ma ahan mid shaqeynaysa waxaan aaminsanahay inaad idinkoo dhanna ogtihiin innaguna aan ognahay maxkamad awoodeedu ka madax bannaan tahay dowladda laftirkeeda madaxda ugu sareysa ama maamul goboleedyadu meesha ma taalo isla markaasna maxkamad ku dhisan powerka ama central governmentiga ha noqoto ama stateska maamul goboleedyada mid laga soo wada xulay oo markaasi u dhammaystiran tahay shuruucdoodii awoodoodii oo markaasi abukaatayaashii iyo qaaliyaashii iyo go'aamadii dadkii qaadi lahaa oo markaasi ku yimaaday ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer muxuu ahaaye maamul goboleed ilaa heer qaran aysan jirin ama aysan u dhammaystirnayn runtii waxaan aaminsanahay meesha dowladda Soomaaliya ama dalka Soomaaliya ama ummadda Soomaaliyeedba ay ka weeqan tahay oo aan halkeeda la helaynin inay tahay waxa marka su'aal ah oo inta badan shacbiga Soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxa su'aal ah oo inta badan ay ka hadlaan isla dowladda laftirkeeda xubno kamid ah ama wasiirada ha noqdaan ama baarlamaanka ha noqdaan waxa sidoo kale su'aal ah oo maamul goboleedyadu laftirkoodu ay soo carbaabaan maxaa loo waayay maxkamad awood u leh oo dastuuri ah oo markaas qoladii xaq ka maqan tahay ama dhaliil qabta ama dacwo qabta ay u tagto waxaan aaminsanahay qodobkaasi isagaahi waa qodob aad iyo aad u muhiim ah qodobkaasi mid isagu daawo u ah ama maamul goboleedyada ama mucaaradka ama dowladda dhexe madaxdeeda ma ahan laakiin waa qodob runtii daawo u ah dan u ah wax badanna kusoo kordhinaya geedi socodka nabadda hanaan socodka qarannimada ummadda Soomaaliyeed horumarka dalka siyaasadda Soomaaliya haddii loo baahdo awood inay ka taliso dalka Soomaaliyana ay ku soo ururayso mid sharciyeysan oo ilaa heer muxuu ahaaye dastuuri ah ilaa heer maxkamadeed ah dalkana inta ka talisa min madaxweynaha ugu sareeya ha noqoto min qofka ugu hooseeya oo markaas xubinka ah ay ka baqayaan marka waa su'aal dal aan lahayn maxkamad awood leh sidee la isku aaminaa sidee loo wada socdaa qaabkee loo wada shaqeeyaa xagee dacwadaheeda lagu qaadaa dacwadaheeda yaa qaada qolomaa lagu haleeyaa ma qabiil baa loo raraa qarankii oo hoos baa looga degaa ma qoys gaara baa lagu muxuu ahaay eexiyaa waxaan u baahannahay inaan aragno maxkamad go'aamada maamul goboleedyadu markay sameynayaan hanjabaadyo sida xiriirada qaar inay goynayaan ama ay markaasi awood ayaga laftirkoodu maamul goboleedyadu aysan lahayn markay isi siinayaan maxkamad inta xaaladooda qiimeysa awood u dhigi kartaan u baahannahay waxaan kaloon u baahannahay maxkamad ka hadli karta oo awood u leh haddii madaxweynuhu oo mid kamid ah shuruucda iyo qawaaniinta dalka Soomaaliya u taala inuu ku takrifalo ama shuruucda dalka u taala mid kamid ah inuu jabiyo hadduu ku talagalo madaxweynuhu waxaan u baahannahay maxkamad dhihi karta waa warqad maxkamadeed awood maxkamadeed madaxweyne qodobkaas isaga awana dib uga laabata madaxweyne qodobkaas isaga awana apologize ka bixisa madaxweyne qodobkaas isaga ah dalka iyo dadkaba mamnuuc ayuu ka yahay sidaas darteed maxkamadda awoodda sare arrinkaas isaga ku fasaxi mayso kuma ogola maxkamad tiraahdaa loo baahan yahay ra'iisul wasaaraha go'aamadiisa wax ka bedeli karta madaxweynaha go'aamadiisa wax ka bedeli karta qolooyinka dacwada soo gudbinaya laftirkooda waxa loo baahan yahay meel ay ku qanci karaan sababtoo ah markii maxkamadda loo soo gudbiyo dadku haday maxkamaddu inta ku laabato
dadku inta kiiskaas asaga inta maxkamadu qiimeyso ka hadasho soo bandhigto isla markaasna maxkamadu ay tahay mid ku dhameystiran oo midalan qaabka hadda dawladani ay ku shaqeynayso ay laftirkeeda maxkamadu ay ku shaqeyso oo aan maxkamadu cid gaar ah aysan u fadhin ama qolo ka timaaday dawladda federaalka Soomaaliya aysan ku mataleen maxkamadda ama qolo gaar ka socota maamul goboleedyada aysan maxkamadda ku mataleen laakiin maxkamad qaran ah maxkamad international ah maxkamad dastuuri ah maxkamad Soomaaliya oo dhan tahay maxkamad maamul goboleed walba oo ku leeyahay dad maxkamad qaranku oo wax ku leeyahay maxkamad muxuu ahaay waxaan ka wada qaranka markaan leeyahay waxaan ka wada dawladda federaalka ay qayb ka tahay maxkamad shacbiga oo wax ku leeyahay maxkamad siyaasiyiinta oo wax ku leeyihiin maxkamad ku dhameystiran maadaama ay tahay meeshii lagu goyn lahaa xaqa iyo xuquuqda qof walba oo lahaan karo qof walba asagoo lahayn oo sheegan karo qof walba isagoo leh sheegan karo meeshii lagu xukumi lahaa oo kii markaas waxa uu sheegta lehna xaqiisi lagu siin karo midka waxa uu sheegta aan lahayna ay maxkamadda go'aan ka gaari karto kiiskaas la laaba dhigi karto dalku marka maxkamad male awooda ugu sareysa dabcan aan iraahdo maxkamada ka shaqeeya way jirtaa hadda laftirkeeda hadalka siday u dhigaan siyaasiyiintu maxkamad dastuuriga way yiraahdaan laakiin maxkamad awoodeedu ay madaxweynaha u yeeli karto ma jirto laakiin waxaan ognahay in madaxweynaha hadii loo baahdo xalana looga yeeli karo xalana in looga yeeli karo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha in xalana looga yeeli karo madaxda maamul goboleedyada in looga yeeli karo xalane oo halkaas maxkamadda u tahan ognahay sida darteed waxaan u baahanahay maxkamad aan uga maarano international community-ga maanta la joogo shirkan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb waxa qayb ka oo fadhiya international community-gu oo maxay u fadhiyaan waxay qiimeynayaan qaabka ay wax u socdaan haddii maxkamadda sare awood ku leedahay aqlabiyad ku leedahay maxaan ku raahdaay guddi markaasi ayadu ay dirsatay oo xaaladaha qiimeeya ama markii hore ayadu ay la timaaday international community waa laga maarmi lahaa sida dawladaha caalamkaba ay uga maarmeen maahan wax adduunka siyaasad adduunka ku cusub ma dawlad walba go'aamadeeda localka international interiga yani arrimaheeda gudaha iyo arrimaheeda dibaddaba dawladdu ayada shaqo ku leh uma baahna yani international community inay qayb ka ahaadaan uma baahna international community ama beesha caalamku waxay soo dhax galaan dadaan is aaminsanayn dadaan ayagu heshiin karin dadaan ayagu wax meel wada dhigan karin iyo dadaan waliba ayagu is aaminsanayn sidaas darteed beesha caalamku waxay rabaan inay fiiriyaan waxa socda wayna ka bixiyaan waliba isla markaas arinta ay dhacday ay ka bixiyaan information oo ay markaasi warbixin ka dhiibaan oo ay media ka hadlaan beesha caalamka marka maxaan u weynay maxkamad awood u leh oo dalkeena hagta siyaasadeena hagta qarankeena hagta dastuurka wadankeena u yaala iyo shuruucda iyo qawaaniintana noo ilaalisa maxkamad aan u shaqeynin madaxweyne ra'iisul wasaare madaxweyne maamul goboleed nin jeebweynaha oo dhaqaale haysta nin shalay nin reer hebel igu dar booska aan ku imaanin maxkamad waxaas oo dhan ka banaanka ah oo awoodeedu budo gaar u tuman ay tahay oo go'aamadeeda ayadoo xaq u leh oo ciday doonto casili karta oo ciday doonto farta ugu yeeli karta oo ilaa heer qaran awoodeedu ay gaarsiisan tahay maxaan u laanahay anaga waa meesha kaliya ku bogsan karno waa meesha kaliya ku noolaan karno waa meesha kaliya caawa aanu ku badbaadi karno dalkeenu ku badbaadi karo dadkeenu ku badbaadi karaan hadaba fikirkaas isaga ah mid aniga shakhsiyan iga yimaada ma aha ee waa mid ummadda Soomaaliyeed ay qabto waa mid aan qayb ka mid ah shacbiga Soomaaliyeed aan ka wariyay waa mid aan ka dhigay ama ka arkay baahida loo baahan yahay maxkamad awoodeedu ay tahay awood sare in dalku uu u baahan yahay qayb ka mid ah siyaasiyiinta qayb ka mid ah baarlamaanka qayb ka mid ah wasiirada hadaba waa marka su'aal meesha taagan maxaa arintaas loo gaari lahayaa waa ta halka ay dhig waxa jira arrimaha dastuurka aan dib ugu soo laabto dastuur qabiya dalkiisu sidoo ku shaqeeyaa duruufaa dhacay Soomaa waa tahay 4 sano madaxweynaha la doorto 4 sano waa gaari waayay mid kale la doorto 4 sano waday isaguna waa gaari waayay mid kale la doorto 4 sano isaguna waa gaari waayay mid kale la doorto 4 sano isaguna waa gaari waayay goormeenu gaarayna marka madaxweynihii kadib markay burburtay dawladii dhexe ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay markay burburtay madaxweynihii ugu horeeyay ee la soo doorto
intii khalalaasida lagu jiray khilaafaadkii waxa ay socdeen oo maxaan ku rahdaay markii laga soo gudbo oo dawladii cali mahdi laftirkeeda laga soo gudbo iyo dawlad loo dhan yahay dhammaystiran si heer qaran ah lagu doortay waxaa ugu horreysay dawladii dabcan carta lagu soo doortay cabdiqaasim salaad xasan dastuurkii nasiib uma yeelan inay dhammaystirto waxaa kusoo xogtay tii cabdullaahi yuusuf axmed allah naxariistee ayadana bagaadii lagu soo doortay waa anada 5 sano kale waay dastuurkii maysan dhammaystirin waxaa kaloo sidoo kale lagu soo doortay dawladii sheekh shariif sheekh axmed oo isagu aan ninkii runtii gaarsiiyey Soomaaliya inay noqoto madaxweynaha ku soo xiga ama isagoo ha noqdo ama mid kale ha noqdo in dalka gudihiisa doorasho ay ka dhacdo oo amniga runtii aad u soo dhaweeyay maantana ku amaanan isaga laftirkiisuna arrimihii dastuurka kama uusan qaban waxaa intaas soo labeeyay waxaa intaas soo afreeyay aan iraahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu nasiib u yeeshay inuu markaasi hanto dawlad federaal ah oo dhammaystiran ka hor dawladihii isaga ka horreeyay ayagoo lagu tilmaamay ku meel gaar asla asagi dastuurkii qabyada ahaana muusan dhammaystirin duruufo jira awgeed dawladdu baa duruufay sheegtaa annaguna sidaan idin leenahay duruufo jira awgeed ma aysan dhammaystirin maxkamad sare oo awood u lehna dalka lagama samayn oo waxaad u moodaaba in ay tahay arrin ku talagal ah inaan dawlad walba aysan fiirin dastuurka dhinaciisa iyo maxkamadda sare markaas awood u leh mid walba waxaad u moodaa faylasheeda inay hoos iska dhigto markaas aysan tanin waxaa ku soo xogay dawladii muxuu ahay hadda uu ka talinayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweynaha dalka Soomaaliya waqti xaadirkan la joogo isagiina arrimihii dastuurka wali waa ku qabiyo dhankiisa annagoo og in qaybahii ugu horreeyay wax badan oo ka qabtay bilaawgii hadda sanadkan iyo inta hadda dambana campaign ay socdaan maxaa loo gaari waayay in arrimaha dastuurka la isla dhammaystiro dastuurka qabyada ah marka waxaa halkaas kaaga muuqata madaxweyne walba oo dalka yimaada sooma uusan kordhin sooma uusan biirin baahida saxda ah ee dalku oo u baahnaa wax badan way qabteen isku soo dhiib bay halkan ku soo gaartay oo hadda laftirkeedaba wax badan baanu haysanaa oo ilaahay ka sokow ayaga hortooda ku yimaaday ayaga madaxooda ku yimaaday laakiin wali dastuurkii dalka Soomaaliya waa qabyo waxaa kaloo qabyo ah oo aan mar walbaba la dhammaystirin laakiin si magac u yeel ah u dhex taagnaada dalka Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya iyo xukuumadda iyo shuruucdaba maxkamad awoodeedu ay tahay mid runtii aan dhammaystirnayn oo weeqan goormee la dhammaystirayaa marka caawa ninka madaxweynaha galmudug ama Puntland ama muxuu ahay Jubbaland ee markay dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay isqabsadaan maxkamaddii awood ku kala saari lahayd xaggee ka imaanaysaa soo looma baahna mase sidii barisamaadkii baan waxaan raadinaa sida Addis Ababa oo kale dad inta noo yeera na dhexdhexaadiya waxaan isleeyahay laga maarmi maayo waxaan ku soo koobay hadalkayga idinkoo aad iyo aad u mahadsan dalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dad caqligoodu dheer yahay fikirkooda siyaasadeed dheer yahay hankooda qarannimada uu dheer yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Soomaaliba iskale waxa qaldan ee waxaan ka rajaynaynaa inay saxmaan sidaa iyo waa Cabdirasaaq Suule oo idinkaga tagay nabadgelyo haddii ay tahay markii kugu horreysay oo channelkeena aad soo booqato fadlan subscribe si barnaamijyada kan xiga aad u hesho isla markaasna aad u noqoto runtii walaal nagu soo biiray adoo aad u mahadsan haddaad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogistaada sidaas oo kale barnaamijyadaadii barnaamijyada channelka ka baxaana arrimaha bulshada wacyigelinta falanqaynta siyaasadda iyo weliba qaybo kaloo markaasi ku saabsan arrimaha Soomaaliya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.